waxa aan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maanta munaasabadan lagu maamuusayo abaalmarinta qiimaha badan ee lagu aqoonsaday dadaalkiina ku dhaqanka sharciga iyo hubinta tayada adeegiina. Abaalmarintan waa guul aad u soo hoyeyseen guud ahaan dhammaan shirkadaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Abaalmarintan iyo aqoonsigan waxa ay ka maqaati kacaysaa in shirkadaheena ay awood u leeyihiin in ay la jaanqaadaan kuna shaqeeyaan heerarka caalamiga ah ee hubinta tayada iyo ku dhaqanka sharciga. Waxa aan rajaynayaa in wadadan cusub ee aad u furteen ay dhiirigelin u noqon doonto dhammaan shirkadaha kale ee dalka. Waxaan idin leeyahay hambalyo adinka iyo shirkadda aad bahwadaagta tihiin ee Hormuud. Shirkadda Hormuud waxa ay shaqaalaysiisaa kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ah sidii hadda gudoomiyaha shirkadda uu noo sheegay. Waxa ay laf dhabar u tahay howlaha samafal ee dalka ka socda, ha ahaato mar ay bixiyaan dhaqaale tabarucaad ah ama ay u fududeeyaan ama gaarsiiyaan dhaqaale kale oo loo wado ummad Soomaaliyeed oo aad ugu baahan. Hormuud waxa ay bixisaa adeeg muhiim ah oo isgaarsiin iyo maaliyadeed oo ay malaayiin shacab Soomaaliyeed ku tiirsan yihiin. Shirkadda Hormuud waa cashuur bixiye sharfan. Shirkadda Hormuud waa ganacsato ku ammaanan maalgelinta ay dalka ku sameeyeen. Shirkadda Hormuud waa hal abuurayaal fikrado iyo adeegyo cusub curiya. Hormuudna waa horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dalka.